good dingle. بسم الله لا ورد برجود قل دين good قل good dingle good قل دين جود قل برجود قل جود دينجل هلا يا ايه مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان سلام بنشر وعمن يفوت على شحر يعرف بشحر الصيام سلام بنشر وعمن يفوت على شحر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنت عن ونكسن إذا هنتي بمركز تاعد إنك دعونا السان إسكستاد نوار كسان دعوة وحان لنا رمضان مبارك رمضان كريم عندما نحن سوق قرني قيبه قدام بشر بركسان رمضان تبانكي دنبه عنده تبانكي هراء إله سبحانه وتعالى هاي نجوى أقبله عبادنا صوبا عندما دعوة وحاد كسو دباتان برنامج عن أقول مقعدرني ويدي يورعلين عن أقول تلقلنا بشر بركسان رمضان برنامجك waxaa nasiib u yeeshay ama aan ku furfuri doona ama barnaamijka noo furfuri doona saaxiibkay Jamuni runtii waa saaxiib igu qaaliya waxaan rabaa inaan marka hore aan soo dhaweeyo Jamuni marka hore ku soo dhawow rushag media saaxiib aad ma santahay Cabdirashiid adi iyo saaxiibadaada iyo daawadayaasha channelka rushag media waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan wanaagsan waan ku dhawahay barnaamijka waan ku faraxsanahay inaan ugu horeeyo barnaamijka Ramadaan loogu talagalay ما شاء الله برنامجك انت ugu gudubran sida oo aragtaa marka hore barnaamijkan weydii iyo warcelin والله برنامج aad u fiican ahaan ka duwan barnaamijyada hore ee social media ee youtuberada inta badan lagu wareysto ama ay baahiyaan oo ah in ay ku yareeyaan youtube-leedin aqoontooda la weydiiyo ama maskaxdooda ay shiilaan ama su'aalooyin kediis oo aqoon ah waan wax loo baahan yahay magaalada bisha barakeysan ee Ramadaan in la sameeyo waana barnaamij aad u soo dhaweynayo boqolkiiba ما شاء الله طبعا برنامجكم wuxuu ka koobnaan doonaa 5 su'aalood 5 su'aalood saddex kamid ah waxay noqon doonaan su'aalo cilmiyeysan oo caadi ah oo su'aalaha caadiga ah laba kamid ah waxay noqon doonaan su'aalo markaas ah su'aal maskaxiyeen ah inta marka ugu gudgalin barnaamijkeena marka hore waxaan rabnaa inaan bal aan wax ka ogaano Jamuni iyo taariikhdiisa aad u mahadsantahay si kooban ani magacaygu saddexan waa Maxamed Abdulqaadir Ismaan waxaan ku magac dheerahay ama la ii garan ogyahay Jamuni oo aanaysa waxaan ku dhashay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose 1994 waxbarashadii dugsiga Quraanka iyo cilmiga diiniga ah waxaan ku soo qaatay tuulada ku dhashay Balbalay sidoo kale dugsigayga hoose dhexe iyo sarena waxaan ku soo qaatay degmada Afgooye qaraan iskuulka Isra waxbarashadii jaamacadda hadda u gudbo oo ka diyaariyay kulliyadda la yiraahdo computer science waxaan muqdisho ku dhameystay 2017 kadib waxaan bilaabay oo aad u jeclaa xirfadan aadii saxaafadda oo idaacadaha inta badan dhageysan jiray laga soo bilaabo 2006 oo isku taxallujin jiray waxbaan diyaarin jiray waxbaan qorin jiray sida waraysiga loo qaaday oo fikiraan gelin jiray oo qaybta media ah iyadoo markaas ay yareen caqabadna ka jirtay muuqaal in la duubo haddana idaacadihi ay hirgashay ilaa markii dambe aan helay tababar saxaafadeed oo 2013 raadiyaha Afgooye helay 2014 meesha ka shaqo bilaabay ilaa 2016 ayaa ku soo idaacada Afgooye aad ugu mahadcelina waqti fiican iyo dadaal fiican aan geliyay markii dambe waxa uu soo wareegtay muqdisho idaacada FM oo yana 2016 ilaa 2019 aan joogay ilaa markii dambe YouTube furtay oo isku dayay inaan bedelo xirfadii maqalka ahayd oo muuqaal u bedelo YouTube aan furtay sports ka hadla sportskii aan waday markii dambe hadana bilooyinka dib u farxasada wada soo geliyay 10 Oktoobar 2018 alxamdulillah si kooban noloshii social media iyo mid gaarka buu ahaa ما شاء الله aan gudagalna barnaamijkeena weydii iyo warcelin su'aalaha dabcan miiska waxaan noo santaa hore oo sheegay 5 su'aalood lambar ayaa qabsan doonta nasiibkaaga marka lambarka ugu horeeya intee ka bilaabanay lambarada waa 5 su'aalood oo 1 ilaa 5 okay waxaan qabsaday lambar 5
lambarka u dambeeya okay dabcan su'aalaha ugu dambeeya waxa ku jira su'aalaha cilmiyeysan ama su'aalo markaas su'aalaha su'aal maskaxiyan su'aashan ugu dambaysa waxa ay ku leedahay waxa sheegtaa adigoo garsooro ah oo meel fadhiya ayaa ama deegaan ka talinaya صح ayaa deegaankii waxa soo galay saddexda nin midab hadii la yiraahdo isku wada eg yihiin dress isku wada eg bay wataan baabuur isku wada eg bay wataan macala baabuurta taarikooyinkooda xataa waa isku wada nooc magaaladu waxa ka da'ayay roob ka da'ayay nimankaas nin kamida ayaa waxa uu jiiray ama uu dilay qof markaas magaalada ka tirsanay wadada marayay kadib kii gaariga qofka dilay uu soo degay gaariga wadadu ka leexiyay waxay damceen inay cararaan laakiin deegaanka ayaa sheegay baabuurtan marka ninkii dilay waa la kala garan waayay saddexda ninku ahaa marka adaa lagu keenay oo markaas jooga deegaanka ama garsoorka ah waxa lagu yiraahdo nimankan ninka naga dilay ninku ahana ma garanayaan bal noo soo saar maxaa adeegsan lahayd ku soo saar lahayd ninka hal mara jeclaan la in lagu soo celiyo okay aku kala dhigaya magaalo ayaa waxaad ka ahayd garsoore sax joogtay magaalada garsooraha ka ahayd aad joogtay waxa yimaaday saddex nin oo isku eg saddex wata dresska isku wada yihiin saddex baabuur isku egna wata baabuurta xataa taarikooyinkooda waa isku eg yihiin saddexdii nin kamida ayaa waxa uu jiiray gaari asoo wuxuu uu jiiray qof buu jiiray kii qofka jiiray uu soo degay oo qofkii uu jiiday markaas magaaladan roob ka da'ayay qofku markuu uu jiiray bay damceen inay cararaan laakiin deegaanka dadka deganaa ayaa arkeen nimankii waa la ceersaday adoo waa la soo qabtay laakiin dadka deegaanka way kala saari waayeen saddexda nin ninku ahaa marka waxa loo geenayaa caaqilka ama waxa loo geenayaa garsooraha adaa lagu keenay waana lagu sheegay taariikh waxa garsoor nimankaas ay sameeyeen waana kala garan waayeen marka adigu waxa laga rabaa inaad soo saartid ninkii falka geystay oo ninkaas ku dhuftay gaaray aad iyo aad ani ahaan hadii la ii keeno horta calaamadan ka fiirin lahaa iyo astaamo maadaama uu yahay ninkii ugu horeeyay uu soo degay dhulka oo roobna da'ay waxaan lagu raadin lahaa astaamo dhiiqama gaartay biima intaas ahaan wallahi ma haayo haddii de qalabka la adeegsanayna fariis ma ku taabtay iyo ninkii ugu horeeyay wadada ka leexiyay baa ila dhahaynin nani hadii la ii keeno garsoor la idhihi lahaa waxaan dhihi lahaa ninka ugu horeeyay maadaama roob da'ay dhulka uu dhiiqa yahay yaa ku soo degay ninkaana soo degay lugihiisaan dhiiqada ka raadin lahaa waxaan dhihi lahaa ninkan su'aal adag oo garsoore horta garsoorka ku fiican tahay qofka soo degay maadaama uu roob da'ay dharkiisa qoyanaa ma keenin laakiin waa keed dhiiqaa taaba tiri waa soo dhaweysay si kale waa u fikiri waaye aad iyo aad way maskaxooda shaqeynaysaa qofku wuxuu raadin lahaa qof kale meelo kale iyo wax kale marka maadaama qofka ugu horeeya soo dega uu yahay waxba calaamada ama roob ku doo ama dhiiqaa gaartay saas ku soo saar marka dharkiisa qoyan oo dadka kale ma soo degin laakiin uu soo degay su'aashaasi waa saxday okay su'aasha xigta lambarka xiga lambar 2 okay lambar 2 waxa ku leedahay waxa sheegtaa qaarada kaliya aan lahayn dhul lama degaana oo dhulkeeda la degan yahay oo qaaradaas dhulkeedu dhan waa la degan yahay lama degaan saxaro dhan ma leh saxaro dhan ma leh degaan ma leh waa Yurub waa garatay okay lambarka xiga okay lambar 4 isdhaafa lambarada u qabsanayaano 5 2 4 joogaad okay lambar 4 su'aal ma ahan laakiin waxbaan ku dhahayaa waxa aan ku dhaho waxa la rabo 3 jeer inaan ii buubsiisid haye okay
waxaad tiraahdaa anigu ku kala dhigaya sa u fahantid lakada waxa laga rabaa ina بوسي صدح مرة بوسيسا صح okay waxaa leedahay diin godgal godgurigal gurigodgal kodingal ibosi يا diin godgal godgurigal gurigodgal kodingal bosi دين قد قال قري قد قال diin godgal godguri diin godgurigal godgurigal gori godgal godingal waa isdhaafay macna diinkan uu soo baxay godkii gurigu galay gurigana uu soo baxay godkii diinku kale دين قد قال قد قري قال دين قد قال قد قري قال waa diin godgal godgurigal gurigodgal godingal دين قد قال قري قد قال قري قد قال دين قد قال الله دبا يدوس الله نور اركي دين قد قال قد قري قال قري قد قال waxay bahalkan diin bahalkan guri wala lahaa waxaan dhahay diin qad قال قد قري قد قال diin godgal godgurigal gurigodgal godingal بسم الله labada dan قري قد قال قد diin godgal godgurigal gurigodgal دين قد قال قري قد قال قدingal hal bahaya aye waxa waaye waa diin godgal godgurigal gurigodgal kodingal labada hor waa haya diin qad قال قري قد قال diin godgal god waxa way diin قد قال قري 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 no diin godgal leh diin godgal دين قد قال godgurigal قد قري قال gurigodgal قري قد قال godingal بسم الله ما ديق isku day wax yar xataa isku day inaa buuxisid دين قد قال قد قري قال قري قد قال قد دين قال صحيح ها دين قد قال قد دين قد قال قد قري قال قري قد قال دين قد قال ها واكي وانا نفسنا نساوي الى بزال معناه دين قد قال قد قري قال قري قد قال قد دين قال اوكي ما انا يقرنا ما انا يقرنا مسكحة في عنتها سؤال كلا waxaan ka dhigana su'aasha u dambe laba su'aal ku dhiman number 3 number 3 okay number 3 na waxa waaye waa choice waa doorasho صح adoo fanaan ah ayaa waxaad u imaaday laba abwaan tusaale ahaan saaxiibada aan ka soo qabanaya Yacko iyo Captain Bara oo kale صح abwaanina u doono abwaanina midkee u doonan lahayd miro maxaad ku xubtay labadooda abwaana ma baahan be ifan way adi lacalla abwaana lahayn lacalla aha adna fanaan ahaan lahayd waxaan dooran lahaa Captain Bara maxaa ku dooratay Captain Bara oo uu isku dayaa waxa aaminsanaya inuu yahay adii hadda way ka muuqataa macna laakiin hadda actor iyo atooriya ka dhigi lahayd Yacko aan dhigi lahaa Yacko laakiin hadda Captain Bara abwaan u qaat Yacko wiji abwaan ma wiji abwaan ma la wiji atoor number 2 waaye okay number 2 waaye number 2 waxa weeye waxa ku leedahay sheeg gobol kamida gobolada Soomaaliya oo hadii laga reebo xarafka ugu horeeya noqonaya wax udgoon ama carafoon okay muluk udgoon adoo udug طبعا سؤالها dadka su'aasha markii la weydiinay qashka ku dhex jirta waa su'aasha waxa weey waa wax udgoon laakiin qofka markii la weydiiyay inta badan dadka inta badan waxay fiiriyaan meel kale baaraan meel kale su'aash kama dhaxelayaan barfuun ay raadiyaan wax carfoon magaalo carfoon gobol carfoon bay raadiyaan marka
miyo saan dhan ku ogahay su'aalaha kugu soo adkeen waa soo tii waxa igu adkeed garsoorka waa raadiyo marka labaad marka kuwaad ma haynin laakiin marka labaad si fiican u fahmay marka dhacday ninka soo degay ninkii dilay uu soo degay waaba jawaabtaba aad si kala dilay xitaa dada waa cidhiilaan fariisa la baara iyo uu taabtay iyo waxa asagil lahayn laakiin maadaama meel baadiita may fara ma jiraan waxa weey waa maskaxiyan baa lorana oo qofka xaakimaal rabaa micnaa oo gala saari kara aad waa su'aal branch fani wallah marka ugu horeysa maxaa filaysay marka soo fadhiistay meesha oo maarta maxaa ka hor iman karin maxaa mataqaana filaysay inaad wallahi caasday su'aalo waxa lagu weydiin doonaa su'aalaha tartanka caasimad hiblaayi sheeg saacad hebel haday saan tahay in saacado soo baxayso xisiisi kara waxaan ku dhufo xisaab iyo buugaaga waxaas diyaarsan rabay caasday tartan kaliya ma lagu qabto aad ma dagaal su'aalooyin qaarna waxaas dhaay su'aalooyin qaar ma lagu weydiiyaa oo private oo aday wali aan YouTube laga dhax weydiinin oo aday dadka qaar la weydiiyo su'aalahaasina waa waxaas dhaay ma lagu weydiiyaa maanta والله waa nasiibkaaga ayaa shanta su'aalood ku soo noqotay waxaan sameynayay su'aalaha beel bay ugu qornaayeen marka صح adigu calafkaaga caaba naga cuntay bas waan runtii waan ka wada jawaabtay waan guuleysatay ugu dambeyntii halkan ayaa ka salaami lahayd والله waxaan salaama dhamaan asxaabta daawanaysa muuqaalkan Roshek Media iyo sillamada tiimka youtuberada familkeyga qaraabada asxaabteyda inta dhan salaama Ramadan wanaagsan ma sha Allah ma sha Ramadan wanaagsan dabcan anaku hadii quruxda noo soo baxday Ramadaankan hadda noo bilowday adinkana anaga furkeena waxa dhiman 2 saac 10 saac marayna marka 2 saac noo dhiman هذا رمضان بلاب هذا رمضان بلاب أنا سجال 8 ساعة يسوق سجال 8 ساعة سجال 8 ساعة سنتين ودم هذا سوى لقى شيء أفرك ونين سجال روح لقى هذا وصل تراويح إذا كجرت تراويح مركز دكان هنا أفرتان ما يحلي تيم كم كقعد أنت تراويح ده أو كلام معركة oo kala daba taraawixda dhaw tukanaysan waa Soomaaliana laakiin neen oo kala taraawixda tukataan marka soo afartan Soomaali waa markay dhamaato taraawixda naanka waa adii 4 saac iyo 1 saac dhiman marka saa okay markaan neen ii tahay habeenimo hadda maalin baa jooga neen habeen markay ii tahay waa afuraya gabiga waxaan afurnaanayaa 4 saac bas 4 saac 4 saac kaliya haddana waa soomay inta kala haa Soomaaliya laakiin anagu wala laga darin yahay waxa naga daran gobol kamida Russia oo dhanka qaybtan soo xiga North America soo xiga waxay Soomaaliyiin 22 saac Soomaaliyiin waxayna furnaanayaan 3 laba saac ka yar goormay afurayaan oo casheynayaan oo saxuuranayaan laba saac wax ka yar afraarayaan marka baasha kala ajir wala kala ajir warta ajirka fiican ma sha Allah ما شاء الله صح مر لبعض مر صدحات بكو بوادنيا مسخحدا caafimaadka qabta wadagu waxaan isdhahay su'aalo kale ku rafan doonaayo waxa waay ma su'aalahay waa ila fadada si kala u xalay aad dabcan waxa soo gaarnay qaybta ugu dambeysay ee xiritaanka barnaamijkeena dabcan dabdiyaal waxa intaas noogu eka barnaamijkeena weydii iyo warcelin oo caawa dabka inoo saarnaa ama inoogu martay ahaa walaalkeen Jamuni runtii uu naga fakaday su'aalaha waxaan isleeyahay su'aalo ku adkaysa oo soo diyaari laakiin su'aalaha ugu adkaa aan isdhahay waxa waaye Jamuni waa ku rafan doona aan waliba aan filayay kuwa maskaxiyanka inuu ku rafan doono ويا فكرة إن شاء الله نصيب كيس عنيد لده كل بدور برنامج كان برنامج كحجة نحن نيجي الناس سيدا سيو أمانة الله